Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Salaan kadib, war naga soo gaaray degmada Hareero oo zoonka Booranta ah. Waxaa lagu dilay nin gabra ah oo ku jiray maamulka degmada Hareero ayaa lagu dilay, waxaana dilay maamulku uu ka mid yahay oo Oromada oo degmada Hareero gacanta ku haya ayaa dilay, iyagoo ku eedeynaya inuu yahay nin dhexdhexaad ah iyo inuu xiriir la leeyahay qoladii uu ka dhashay oo gabraha ah. iyagoo laba arrimood ku eedeynaya ayaa ninkaas oo maamulkood ka mid ah degmada Hareero ay ku dileen. Warkaasaa naga soo gaaray degmada Hareero. Sidoo oo kale war naga soo gaaray degmada Moyale in maamulka Oromada Booran zoonka ah ay isu soo haruuriyeen qolooyinka gabraha ah oo maamulkooda ku jira, shaqaalaha gabraha oo maamulkooda ku jira iyo dadka gabraha oo waxgaradka oo dhinacood ka soo jeeda, oo ay dooreysiyeen in ay ama dadkooda gabraha oo dhinaca Somali jira in ay dhinaca Somali ka soo kaxeeyaan iyo inay la dagaalamaan. Hadday dhinacaas ka soo jeesan waayaan ama ka soo guuri waayaan inay la dagaalamaan. Arrintaas ayagoo ku qalqaalinaya ayaa dadkaas waxgaradkooda iyo dadka shaqaalaha oo degmada oo dhinacooda ah ayaa isu soo waceen, oo shirkaas iyo qabanqaabadaas ayaa socda si ay isku diraan labadii gabraha oo kuwii dhinaca Oromo degan iyo kuwii dhinaca Somali degan inay isku diraan. Sidoo kale waxaa naga soo gaaray war naga soo gaaray zoonka Guji in qolooyinka Oromada, maamulka Oromada oo Booran zoonka ah ay ku dirqinayaan inay la dagaalamaan dadka ay diris la yihiin oo isla degan yihiin, oo zoonka Gujina ay diidan yihiin arrintaas, oo ay leeyihiin annagu dadka diris nala ah oo Ethiopian oo shacabka Ethiopian oo sidayna oo kale ah bilaa sabab la'aan, bilaa macno la'aan la dagaalami mayno ay leeyihiin, oo maamulka zoonka Boorantana ay ku qasbayaan in ay dadka diriska ah oo zoonka Gujina ay la dagaalamaan dadka diriska ay leeyihiin. Taas dartii ay dhaxdooda hadda harguf ka taagan tahay ayaa warkaas ayaa naga soo gaaraya dhinacaasna. Sidoo kale dhinaca xuduudaha Uudad iyo Waajile meesha u dhaxaysana waxay oo Oromadu maamulka zoonka Booranta oo Oromada ay wadaan oo dhaqdhaqaaq dagaal ayay wadaan. Wararka sidaas oo kale ayaa naga soo gaaraya. Taas waa wax ma aragtay markasta ay caadeysteen in ay dadkii dhex degan oo ummadii kale ay la dagaalamaan oo ay laayaan. Weli war kalena naga soo gaaraya dhinaca Yaabalo iyo meelahaas dadkii dhex degan oo ummadda Ethiopianka, shacabka Ethiopianka oo dhex deganna inay ku kacsan yihiin oo ay leeyihiin degmooyinkeena waa inaad ka guurtaan ood ka baxdaan. Ay leeyihiin waxaan Oromo ahayn ma arki karno, waa inay naga guuraan. Waxaan leenahay, waxaanu la yaabanahay dadkaani waa wada Ethiopian, waa shacabka Ethiopian, way shacabka Ethiopiankana meel kasta, meel allaale meel wadanka Ethiopianka waa isku dhex degaan, way isla degan yihiin. Haddii hadda Oromadu ay leeyihiin, maamulka Oromadu hadda ay ku andacoonayaan in shacab kale oon Oromada ahayn oo Ethiopianki kale aha oo maamulkooda iyo degaankooda ay ka baxaan oo ay dhex mari karin, oo ay dhex degi karin, oo qofkii dhex marana ay dilayaan oo la dagaalayaan, qofkii dhex deganna ay dilayaan oo la dagaalayaan iyagoo ku tuhunsan
tuhun xun oo ay leeyihiin dowladdaad la jirtaan taas ma wax soconaya miyay noqon doontaa ma wax ma aragtay nabadgeliyada iyo wanaag lagu raadinaba in hadda jidadka la kala xirto oo ummadda oromada maamulka oromada la dhex mari karin oo ay leeyihiin qolo kasta waxaan oromo ahayn nama dhex mari karaan ama ma aragtay baxmushtarka aan ma aragtay oo isku gudbi karin oo baabur kasta oo baxmushtarku rartaanna ay hor joogsadaan waa arrin annagu aan la yaabanahay weeye maxay u leeyihiin dadkan miyaanan fikiraynin dadka oromada haddii ma aragtay qolo kasta sidii gabraha oo kale oromo sheegtaan oo dhex degaanna oo ay mar kasta oy la dagaalayaan oo degaankood ka kacinayaan sidii inta ka hor meeshii suruba la yiraahdo intii degmo laga dhigay kadib markay meeshii degmo noqotay booranto maamulka oromada oo zoonka booranka intay imaadeen oo dadka gabraha oo meeshii degmo ka dhigteen intay la dagaaleen oo xoola ay leeyihiin ka dhaceen wax kasta ka dhaceen degmada ka kaxaysteen iyaga la wareegeen oo 2000 inta ka horna dadka garaha oo oromo sheegtay oo degan degmada hareero ay xasuuq ku sameeyeen dadkaas markaas oromo bay sheeganayaan oromo bay sheegteen maamulka oromo bay ka mid yihiin war oromo boora ma ahayn oromo ma tihiin intay yiraahdeen oo xasuuqeen oo 70 iyo dhowr ruux halkaa lagu dilay oo haddana sheegeen inay dowladda leysay oo ku andacoodeen inay qolo oromo ay dowladda halkaa ku leysay dowladda Tigray halkaa ku leysay oo dhaqankii noocaas oo kale oo dadkan caadeysteen miyaynan weli al'aana ay ka waantoobaynin dhaqan xumadaas iyo ma aragtay dhaqdhaqaaq xumadaas ay hadda ku kacaan ma sidaas ay dowladnimo iyo gobonnimo iyo wanaag ku gaarayaan arrintaasi oromadu waa inay ka waantoobda ay ogaata waddanku inuu yahay waddan Ethiopian ah oo dadkuna dad shacabka Ethiopianna ay simay oo ku siman yihiin meel allaale meel ay degaan qolo kasta oo qolo oo la kala lahayn haddii la kala leeyahayna bilmitir gobolooyinka haddii la kala leeyahayna qofkii gobol kale dhex degana aan la ugaarsan karin nin oo lagu aqoonsado inay yihiin dadka Ethiopianka ah oo xuquuq leh oo hadday minority yihiinna xuquuq leeyihiin oo lagu arkin qof kasta oo socda oo qof dowladda la jira dowladda dadku hadday dowladda la jiraan dowladooda la jiraan ma dhib bay sameeyeen iyaguma dowladday la jiraan dowladda haddii la yiraahdo oromada ayaa ugu badan barlamaanka wasiirada ciidamada iyo meel kasta oo dowladda leedahay iyaga ugu badan oo haddana ay leeyihiin dowladda aad la jirtaan dowladdaad jaajuus ku tihiin oo u tihiin intay yiraahdaan dadka laynayaan waa arrin aan isqabanaynin weeye arrin aan la eegan karin weeye sidaa darteed waa in ay ka waantoobaan arrintaasi ayaanu leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Hi, Satan.